بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr arrimood. arrimahaasi waxay ku socotaa dowladda Somaliland. waxay iskugu jirtaa baaq fariin. Somaliland laga soo bilaabo 2002 ilaa 2010 waxaa ka dhacay qaraxyo ama falal argagixiso. waqtigaas oo daarayaal kaayeen xilka haystay waxaa wadanka markaa lagu qabtay ashkhaas ka dambeeyay ama kuwii fuliyay. xubnaha la qabtay ee falalka argagixiso loo qabtay waxay ahaayeen 22 xubnood. 22 xubnood waxaa lagu xukumay xeerka ciqaabta guud xeer lambar 222 kaasoo ahaa 20 sano ilaa xabsi daa'im. qaarkoodna xabsi daa'im lagu xukumay, qaarkoodna lagu xukumay 20 sano. haddaba waqtigii uu siiraanyo xilka la wareegay waxa albaabada ooda looga qaaday oo la sii daayay 11 xubnood. hal xubin maaha 10 kale ay kasoo jeedaan beesha dhexe, isla weliba jifada uu madaxweyne siiraanyo ay kasoo jeedaan, taasoo aad moodo cadaalad darro in ay meeshaasi ka jirto ayna u dhacday. because dadka 22 qof hal xeer ayaa lagu xukumay oo ciqaabta guud ee Somaliland u dejisan, kaasoo ah xeerka 222 xeerka ciqaabta guud. haddaba raggii kiiska lagu xukumay qaarkoodna waa la sii daayay, qaarkoodna xabsiga ayaa ilaa hadda ay ku jiraan, oo qaarkood ay lugahay ku dhex qormeen dhaawac ka gaaray. haddaba waxaan leeyahay mudane madaxweyne, haddii adigu ninkaagu qaali ku yahay oo aad xeerkii iyo nidaamkii dejisnaa dalka u dejisnaa aad awood u isticmaashood ku soo daysay, anigana haddaan nahay bulshada gobolka Awdal, labada nin ee ku xiran xabsiga qiimo ayay noo leeyihiin. waxaan ku oran lahaa sida ugu dhaqsiyaad badan leh aan loo sii daayo, waayo raggii la ciqaabta ahaa ay kiiska ay wada galeen ama lagu soo wada oogay waad sii daysay adigoo hayb ahaan u sii daayay. saa daraaddeed waxaan kuu soo jeedinayaa in aad sii dayso cabdiraxmaan ismaaciil yuusuf iyo cabdiraxmaan maxamed jaamac oo labaduba ay kasoo jeedaan gobolka Awdal. markii aad sii daynaysay waxaan u arkaa anigu nimanka aad isku haybta tihiin in ay ahayd fariin ku socotay reer Awdal, balse reer Awdal aynan stiil weli fahmin, waayo cadaalad darra inay meesha jirto ay ahayd, laakiin way fahmi waayeen reer Awdal. weli cid ka hadashayna ma arkin. cabdiraxmaan indha cadde xabad baa lugta kaga dhacday, jeelkaanu ku jiraa, lugtu way qurantay, daryeel caafimaad ma helin, jirdil baa lagu hayaa. taasina waan ka xumahay, waana ka damqanayaa. waxaan soo jeedinayaa anigu in si shuruud la-aan ah loo sii daayo, maadaama oo dadkii la midka ahaa ee isku kiiska hayeen la sii daayay. haddii kale dee waxay halkaa ka cad inay cadaalad darro ay meesha ka jirto, Somalilandna cadaalad darradaas ay u dumi doonto tii dowladdii Maxamed Saabar halka ay martay mari doonto. waxaa tahay ugu xigtaa oo aan rabaa inaan ka hadlo maanta, oo isla tan uun la halmaasha TV-ga qaranka. waxaa ka shaqayn jiray 6 wiil oo kasoo jeeda gobolka Awdal. 6da wiil 5 ka mid ah hore ayaa loo eriyay. 5ta wiil waxaa ka mid ahaa xasan maxamed axmed, khaalid axmed cali, mustafa cabdi wowle, mustafa maxamed cabdilaahi, liibaan sheekh cali jawhar. 5taasi waxaa loo eriyay shaqadoodii ay ku waayeen hayb iyagoo kasoo jeeda gobolka Awdal. taasina waxay caddeynaysaa oo ama fariin u tahay fariinta
ay gudboonayso xukuumadda Siraayo uu hormoodka ka yahay, taasoo u dhiganta fariintu in ay reer awdal ayna meesha waxba u oolin. laakiinse Somaliland cadaalad darrada ka jirta iyadna taasaa sii cadaynaysa. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa mayd maxaa u dambeeyey, mayd kaa la sii sidaa u dambeeyey. waxaynu wada ogsoonahay asbuuc ka hor in shaqadii laga eriyey iyadoo loogu erayayo hayb Abiib Iimaan Xasan, wariyihii rugcadaaga ahaa, aas-aasayaasha ka mid ah idaacadda Hargeysa 91dii, ka mid ahaa aas-aasayaashii TV-ga qaranka. waana qodob badan aan u leeyahay, muddadii aan saxaafadda ku jirayna aan shaqo badan isla soo qabanay. waxa halkaasi ay caddaynaysaa oo ay fariin u tahay mar labaad bulshada reer awdal in nidaamka maamulka Maxamuud Axmed Siraayo uu hormood ka yahay, in ay u tahay fariin reer awdal meesha aynay waxba u oolin, balse laakiin reer awdal dulqaad iyo samir ay 22 sannadood ay ku joogeen. marka waxaan leeyahay mudane madaxweyne, xilkama waxaad u qabatay in aad reer awdal wixii xil yar oo hoose haya aad meesha ka tuurtood ka sifayso, mise Somaliland nidaamka nabadgelyo iyo amniga ka jira inaad kor usii qaado oo dalka cadaalad aad ku maamusho, oo wixii la kala tabanayo aad bedel ku samayso, mise inaad reer awdal aad meesha ka sifayso inaad u timaday. labadaa waanu kala garan laanahay, ee bal noo soo caddeeyo ujeedadaada inaad caddayso ayaanu kaa filaynaa, ayaanu kaa sugaynaa. waxaanse u sheegayaa Siraayo uu ihlimaamsan yahay quwadda Somaliland ay ku taamayso ama heerka ay kusoo gaadhay in ay tahay bulshada reer awdal. reer awdal haddii aynaysan jirin, Somaliland nabadda horumarka ay ku naaloonayso may jirteen. daaraha waaweyn ee quruxda badan leh ee Hargeysa meel walba laga dhisay may dhismeen. beesha caalamka kaalmada ay siiso may siiseen haddaynan reer awdal maal, muruq, awood, caqli, karti intaba haddayn u hibeen Somaliland jiritaankeega ama dhisitaankeega. Somaliland maanta sidaa may ahaatee, koonfur ayaa la mid noqon lahayd. marka Somaliland iyadoo ay sidaas reer awdal ay usoo garab istaageen, heerka ay maanta maraysana ay aasaaskeyga iyo gundhigeyga ay ka mid ahaayeen, bisna haddana lagula kacayo cawaaqib xumo xun. anigu kale waxaan qabaa Somaliland inuu waraabo cuni doono. waraabana hadduu reerka usoo dhaco cidna u aaba yeeli maayo. wanka neefka u shiris ayuunbuu qaadan u cunay. marka waxa weeye arrinta aan kusoo gunaanada hadalkayga waxa weeye Somaliland haddii ay rabto wadajirka iyo midnimada inay sii waarto, nabadgelyadu hooyo kasta ay ku nooshahay maanta ay ku joogto inay sii jirto, dadka waxaa deeqa cadaalad. cadaalad baa loo baahan yahay. cadaaladda haddii la heli waayo, dee nin walba xeradiisu oodan doonaayo, nin walba halkii dan ugu jirta ayuu mari. kolley waxaan kusoo gabagabeynaya hadalkayga oo aan leeyahay xukuumadda Somaliland, tallaabadan aad mar walba fariintan aad mar walba noo soo dirayso wax ka bedel dib isku noqdo, sidaas si qurux badan waa inaad la timaadaan. beesha caalamka aad ixtiraafkaad ka raadinaysana iyada intaad ka helin ixtiraaf anay ku xidhantay ixtiraaf. anigoo reer awdal ama bulshada reer awdal ayaa ixtiraafka Somaliland ay gacantooda ku jirtaa. reer awdal markay ixtiraafaan ama bulshada kale ee hareeraha Somaliland ku nool ay ixtiraafaan, ayuu caalamkan ixtiraaf adkeeyay. waxaan aad la soo shir tegaysaana waa in aniga iga iibsamaan. haddii aan waxaad la soo shir tegaysaana iga iibsamaynin, sidee beesha aan kaaga qaadanaya oo u qaadan karaa ama kaaga iibsanaya? ka kolley waxaan kusoo gabagabeynayaa Somaliland dib iskugu noqoto, sida ay u wado waa inay wax ka bedeshaan. nin kastoo meesha yimaado madaxweyne noqdaaba wadadii kii hore maran buu maraya. ma jirto qof weli isku dayay inuu wax ka bedelo nidaamka qalloocan ee meesha ka taagan. taasina waxay ku caddaynaysaa aqoon yarida ama karti la-aanta hogaamiyaasha siyaasadda ee kuraasta ku faa'iideystay ay qabaan, ay aaminsan yihiin. markaa kolley waxaan kusoo gabagabeynayaa
ummadda cadaalad baa deeqdee cadaalad dadka loo simo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.